بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينين مروين بكسو لوادا ورركي عالمك نغسو قالي هل كان وايدا عدا مجرنك صدحيس سو لوادا مدينين مروين shirkii ka dhacay wadanka boqortooyada Sacuudiga talaadadii ee dhaxmaray hogaamiyaashii ka socday wadamada Russia iyo waliba wadankaasi Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyay. marka hore waxa ay sarkay xogayaha arrimaha dibadda Ameerikaanka ninka lagu magacaabo Marco Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee muddada dheer isagu ka ah wasiirka wadanka Russia oo siyaasi caana ah oo lagu magacaabo Sergey Lavrov iyo xubno kale oo Ameerikaanku u soo dirsaday. waxay ka wada hadleen arrinta ku saabsan Ukraine iyo dagaalka 3 sano madaxa la galay ee Ukraine lagu qaaday oo Russia ku qaaday. heshiiskaasi isaga ah waxa ujeedkiisu uu ahaa kulankaasi in markii ugu horeysay boorka laga jafo xiriir darrada iyo wanaaga aan u dhaxaynin Ameerikaanka iyo Russia oo cunaqabateen xoog leh Ameerikaanka siyaabo kala duwan Russia loo saaray. laakiin iminka waxay u muuqatay Donald J. Trump madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanku markii labaad inuu aqbalay barnaamijka ah inuu isagu go'aan ku gaaro si toos ah Mareykanku inay Russia ula macaamilaan marka laga hadlayo arrinta Ukraine iyo dagaalka iyo waliba arrimo kale. arrintaasi iyada ah ayaa waxay ahayd mid ay u bogeen labada dhinaca Russia iyo waliba dhinaca wadankaasi Mareykanka. Sergey Lavrov markii uu ka soo laabtay dalka Sacuudiga wuxuu markiiba warbixin degdeg ah siiyay madaxweynaha wadanka Russia Vladimir Putin oo uga warbixiyay xaaladda jirtay iyadoo shuruudo ay jiraan ay Russia wadato ay kamid tahay hadiiba heshiis la gaaro in ciidamo ka socda gaashaanbuurta NATO oo nabad ilaalin aan la keeni karin dhinaca wadanka Ukraine. laakiinse mar kale oo uu hadlay madaxweyne Vladimir Putin waxa uu yiri warbixinta la iga siiyay shirkaasi dhinaca ka socday Sacuudiga ee u dhaxeeyay dalkayga buu yiri Russia iyo Mareykanka aad baan u soo dhaweynayaa qodobada ka soo baxay waana u arkaa in wax badan la wada qaban karo oo ku saabsan sidii colaadda loo joojin karo xiriirkana loo adkeyn karayo. laakiin arrintaasi waxay u muuqatay in aanay jeclaysan qolyaha lagu magacaabo reer Yurub oo ah kuwa xayndaabka la ah dalka Russia oo iyaga shirka aan laga qayb galin ama aan la martigelin iyo dalka dagaalkiisa laga hadlayay oo ah wadanka Ukraine oo isaga laftiisana aan shirka lagu matelin ama aan laga qayb galinin. reer Yurub waxa ay sheegeen inay muhiim ahayd inay shirka tagaan laakiin aanay tagin haddana ay kulan degdeg ah isugu yimaadeen magaalada Paris oo uu kulanka abaabulay madaxweynaha martida loo ahaa Emmanuel Macron. waxay ka wada hadleen waxa la gudboonaya arrinta jirta iyadoo waliba ay sheegeen inay kaalin fiican ka qaadan karayaan arrimo badan laakiin marka hore ay tahay iyaga laftooda difaacooda inay adkeeyaan. waxa kale oo hadlay ninka lagu magacaabo Marco Rutte oo ah xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO oo yiri isaguna wax badan oo nabadeed ayaa la qaban karayaa. laakiin madaxweynaha Russia oo warbaahinta la hadlayay isagoo jooga Pittsburgh waxa uu shaaca ka qaaday Russia marna inaanay diidin inay wada hadal la gasho nabadeed dhinaca reer Yurub laakiin reer Yurub ayaga ayaan ogolayn Russia inay la fadhiistaan. waxa kale oo isaguna Florida ka hadlay inta aanu Washington ku soo laaban madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J. Trump oo halkaasi kulan kula lahaa qolyo reer Sacuudiya oo maalgelin sameynayay. waxaana uu yiri isagoo warbaahinta la hadlaya waa soo dhaweynaya barnaamijka ku saabsan wada hadalka magaalada ka dhacay Riyadh ee boqortooyada Sacuudiga Russia iyo waliba wadanka Mareykanka waxaanan cadeynayaa buu yiri Vladimir Putin gacmihiisu inay ku jiraan wax walba oo ku saabsan sida nabad looga gaari lahaa dhinaca Ukraine. madaxweynaha dalka Ukraine ayuu Trump ka hadlay waxaana uu yiri waa keligi taliye ama waa dictator isagoo waliba sheegay wax badan inaanu ogeyn dhinaca kalena uu malaayiin dadkiisa uu bilaa macno u laayay oo uu baabi'iyay taasoo marka ula jeeday marka ay faahfaahiyaan qolyaha warbaahintu dagaalka la galay iyo dhibka dhacay isagoo sheegay inuu ka baaqsan karay. laakiinse ninkan isaga lagu magacaabo Zelensky oo aan shirka laga qayb galin aadna uga careysan madax xanuunka dhinaca Russia ayaa waxa uu qabay weligiiba in laga ilaalin karo Russia dawladda ka ilaalin kartaana ay tahay dawladda Mareykanka laakiin uu arkay haddii madaxweynaha Mareykanku sida uu hadlay inaan isagoo Zelensky waxba aan loo qaban kareynin. waxaana uu ku tilmaamay intaan isaga dictator ama kaliya taliye la oran inuu Trump ku yiri Trump wax badan kama oga ama laba socdo xaaladda ka jirta dhinaca dagaalka iyo marka la fiiriyo shirkii ka dhacayna Riyadh iyo waxyaabihii kale ee laga wada laakiin iminka waxay u muuqataa sidii Biden uu u taageeri jiray Ukraine inaysan Mareykanku mar dambe u taageeri doonin. waxa kale oo madaxweyne Trump uu sheegay maadaama uu dhul badan haysto dawladda Russia gacmaheeda nabaddu inay ku jirto oo la rabo in qaabkaasi la maro. wada hadal ayaa jira dabcan la sii wadi doono aan la ogeyn cidda laga qayb gelin doono haddii ay isku ekeyn doonaan arrinta laba wafdi oo laga kala magacaabo dhinaca Ukraine iyo dhinaca Russia iyo haddii Yurub laga qayb gelin doono iyo haddii kaleba waa arrimo kale oo markaasi dhiman. laakiin kulankii ka dhacay Riyadh dadka qaarna waa u bogeen sida Russia iyo Mareykanka inta kalena ma jeclaysan sida Zelensky iyo reer Ukraine iyo waliba marka la fiiriyo reer Yurub oo iyaga laftooda u arkay in la saluugay mar haddii aan shirka noocaasi oo kale aan laga qayb galinin.